مسؤوليinta sarsare ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wicid ayaa maanta shir si wada jir ugu qabtay magaalada Hargeysa waxaanay kaga hadleen xaaladda guud ee dalku marayo sidoo kale colaadda deegaanka Tukarraq ee xuduudka Puntland iyo Somaliland sidoo kale waxay carabka ku dhufteen labada beelood ee walaalaha ee dhawaan uu dagaalku ku dhexmaray deegaanka Ceelafoyn oo ay soo jeediyeen inay nabad qaataan waxa hadalka ku hormaray Axmed Cabdi Muuse Abyan gudoomiye ku-xigeenka xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wicid oo isagu umuurtaasi ka hadlay waxa hadaladiisii kamid ahaa hadan walaalaha Puntland iyo durbaankan ay tumayaan maalmahan iyo muusanawgan waxaan leeyahay walaalayaalow laascaanood iyo gobolka Sool dadkii lahaa ee u dhashay baa degan iyaga maamula iyaga ka taliya dersnimadii iyo walaaltinimadii iyo ehelnimadii inaga dhaxaysay ee jirtay hal la ilaaliyo colaadan waa colaad ay ku dhimanayaan dad Soomaaliyeed dhalinyaro Soomaaliyeed inna ku guuleysan maayo waa loos weeyaan xaqiiqadu waa taa weeyaan laascaanood iyo Soolna waxa jooga cid laga xoreynaya ma jirto waxa jooga oo difaacaya oo ku nooli waa dadkii u dhashay weeyaan iyaga ayaana gartay duntoodu inay ku jirto inay ka mid noqdaan Somaliland ay wax ku leeyihiin colaadaas walaalayaal u joojiyay natiijo laga gaari maayo siyaasiyiinta reer Somaliland ee Hargeysa ka hadla siyaasiyiintaas xukuumadda ku jireen ama banaanka ha joogeen waxaad moodaa markay hadlayaan oo arrimahan oo kale iyo arrimo lamid ah ka hadlayaan inay ka hadlayaan tuulo ay degan yihiin ama ay la hadlayaan beeshoodii walaalayaalow 30 sano 40 sano ka hor wixii dhacay waa laga soo gudbay maskaxdiinu ha garato waasi ha u noqoto in dawladnimo iyo qarannimo looga gudbay iyo wadan la wada leeyahay oo la wada degan yahay hadallada aad ku hadlaysaan ee laga dhadhasanayo isirka ama beelaysan ee sii kicinaya xiisadaha kale hadallada ka waantooba oo intaydan media hor iman oo mas'uuliyad qofku markuu media hor yimaado oo fursad u helo inuu la hadlo ummadda مسؤوليات باكو ليسا واحد كو هادليسان سو قرطا فضلا سو قرطا او بل دور جير اخريا هذا الكينو هاد نقطه هذا القرنيمه هذا الدولديد هذا البيل iyo jamhad iyo wax la mid ah ka koro dhankiisa xogayaha guud ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wicid Axmed Xirsi Ducaale ayaa waxa uu ka hadlay socdaal ku joogo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland Cabdixakiin Cumar Camay magaalada Buuhoodle sidoo kale waxa uu sheegay in uu soo dhaxmaray dawlad deegaanka Itoobiya oo sheegay in aan xiriirka Somaliland iyo Itoobiya u wanaagsanayn arintaasi dhanka kale xogayaha guud ee xisbiga cadaaladda ee daryeelka wicid ayaa waxa uu u soo jeediyay mas'uuliyiinta gobolka Sool in ay dadka u naxariistaan isla markaasina ay u dulqaataan daladiisina waxa kamid ahaa arinta aan runtii aad uga xunahay waxa weeye arinta uu ka wado madaxweyne ku-xigeenka Puntland Buuhoodle ee tolaayda ee ciidan urursiga ah isagoo la sheegay inuu soo dhaxmaray xuduudka bariga Itoobiya ee kilinka shanaad arintaas arin qabata maaha hadaan nahay reer Somaliland inuu soo dhaxmaro wadan Itoobiya leedahay oo kilinka shanaad uu soo dhaxmaro isagoo tiknikada ciidan wata madaxweyne ku-xigeenka Puntland waxaan leenahay arintaas arin Somaliland qabata maaha arin derisnimada iyo wanaaga ka dhaxeeya Somaliland iyo Itoobiya saacidayna maaha arinta uu ka wado halka ololaana waa arin aan ka soo horjeedno waa arin aan leenahay maanta Buuhoodle nabad bay u baahan tahay ee colaad uma baahna arrimaha Tukarraq iyo sababaheeda intaan ka bixin waan la qabaa professorka arinta in la dejiyo xariga iyo caburinta laga daayo dadka deegaanka loo dulqaato waxyaabaha dumarkii carruurtii maatada ay sameynayaan dhalinyarada ay sameynayaan ay dawladdu muujiso dulqaad waa arinta TV-ga Som News baaritaan baanu galay dhowrkii cashaada u xidhnaa waxaanu soo ogaanay inaanay ahayn dariiqada uu ku xidhan yahay wax sharci ah inan baa wariye aba meel diin jooga oo wargeliyay website-kiisa ayaa loo helay wax dambi ah inta aanu ka ognahay anagu oo loo sheegay in lagu xidhay markii ay sababta dooneen waxaan leenahay arintaas sharci maaha xaq maaha TV-gaas in sida lagu xidho TV-yada Somaliland oo dhanna iyo website-ada iyo iclaanka Somaliland warbaahinta Somaliland aad iyo aad baan anagu ixtiraam iyo sharaf ugu haynaa hadaan nahay xisbiga wicid Axmed Cabdi RTN TV Hargeysa